ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan wadnaa casharadeenii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay magacyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca Ilaahay ee assalaam oo ah nabadeeye. Ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadda asaga haya, asaga nabadda qaybiya, asagaana qof walba nabadda meesha uu joogo ku gaarsiiya. waxayna ka mid tahay deeqaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadkiisa ugu deeqay inuu qofku asagu nabad helo, diin ahaan nabad u helo, dariskiisu nabad helaan, dadku la nool yahay nabad helaan, cid kastana uu nabad kula noolaado. sidaa darteed Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka nabad noqday ama ka badbaaday, ama Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cid walba oo khalqigiisa awoodiisa ugu badbaadiyey oo u fududeeyey inay helaan nabad ay ku noolaadaan si ay u gaaraan barwaaqo adduun iyo barwaaqo aakhiro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala asagana wuxuu ka nabadgalay wax kasta oo daatadiisa ama sifadiisa ama ficilkiisa aan u qalmin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu adoomadiisana ugu deeqay oo uu siiyey in mar walba ay nabad helaan, oo nabaddu ay u noqotay waxyaabaha asaaska u ah. awliyadiisa iyo adoomihiisa marka uu jannada geeyo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri salaamun qawlan min rabbin raxiim. rusushiisa iyo ambiyadiisana waxyaabaha uu ku tilmaamay oo uu ku sheegay waxaa ka mid ah salaamun cala almursaliin. nabiyullaahi ibraahimna si gaara buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu doortay oo uu yiri salaamun calaa ibraahim. wuxuu kaloo ayagana salaantaas ama nabaddaas uu mar walba ugu celceliyey ambiyadiisa qaar ka mid ah oo uu ka mid yahay nebi muuse iyo nebi haaruun calayhim assalaam, salaamun calaa muusa wa haaruun. ummadda mu'miniinta ahna wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam amray inay dhaqan iyo akhlaaq ka dhigtaan inay salaan ama nabad mar walba isugu naadiyaan. ifshu salaama baynakum, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dadka muslimiinta ah ku dhiirigeliyey inay akhlaaq iyo dhaqan ay ka dhigtaan. waxaa kaloo Ilaahay amray marka aad guri timaado oo aad meel soo gasho, fa idaa dakhaltum buyuutan fasallimuu calaa ahliha, oo ah marka lagu arkaba in marka hore adiga nabad laga arko, adiga inaan nabad wadin ay ka muuqato. sidaa darteed Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu jannadiisa xataa ku ammaanay waxaa ka mid ah wallahu yadcuu ilaa daari salaami wa yahdi man yashaa, oo culimada qaarkood mufasiriinta ay dhaheen Ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ah assalaam, jannadiisa wuxuu u bixiyey assalaam. qof kasta oo soo galana waxaa la siiyey salaam oo ah nabad baa la siiyey. ibnu Cabbaas wuxuu leeyahay jannooyinku waa 7, mid ka midana waxaa la dhahaa assalaam. saa darteed Ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyinka qaar maadaama salaam loo bixiyey, culimmadu waxay yidhaahdeen mar waxaa loogu bixiyey in loo idaafeeyey oo loo tiiriyey Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ah assalaam, marna waxaa loo tiiriyey dadka meesha ku nool waxay iskula hadlaan oo isku salaamaan oo ah assalaamu calaykum. marna waxaa loo tiiriyey maadaama meeshii lagu soo cuskaday ee lagu soo fariistay ee la yimid ee nabadda lagu raadinayay inay tahay, saa darteed Ilaahay inuu jannadiisa salaam u bixiyey. qofka marka bini aadamka adduunyada marka uu joogo, nabaddu waxay u tahay rajo. wuxuu rajaynayaa inuu nabad ku noolaado, wuxuu rajaynayaa inuu nabad gaaro, wuxuu rajaynayaa inuu nabad heli doono. laakiin marka aakhire la tago oo dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay uu jannadiisa geeyo, nabaddaasi waxay u tahay waaqic ama xaalad dhab ah oo ay ku nool yihiin oo ay la noolaanayaan. yacni meesha u dambeysay oo nabadda ay raadinayeen bayba tageen. sidaa darteed qofka waxaa laga rabaa muslimka ah inuu nabadda kula noolaado. horta marka koowaad naftiisa, naftaada see nabad kula noolaanaysaa? waa inaad ka fogeyso wax kasta oo culimmadu ku sheegeen ashahawaat washubahaat, wax kasta oo caqiidadaada tashwiish kaa gelinaya ama kaa wareerinayo inaad marka hore naftaada ka tirtirto. wax kasta oo hawada naftaada iyo damacaaga ku hagaya ee sabab kugu noqonaya inay haadaan kaa tuuraan, waxaa laga rabaa inaad naftaada ka nabadgeliso. waxaa kaloo la rabaa naftaada inaad ka nabadgeliso xiqdi iyo xumaan dadka inaad u qaado. sidoo kale akhlaaqdaada iyo anshaxaaga shakhsigaana wax kastoo xumaana inaad ka nabadgeliso. meeshaasaad waxaa gaaraysaa marka inaad adiga nabad iskula noolaato oo aad naftaada nabad kula noolaato. wuxuu sheegay Sheekh Shacraawi
markii uu fasirayay xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi, wuxuu yidhi kaas waxaa laga hadlayay in adiga dadka kaa nabad galaan. ka waran buu yidhi haddii naftaada ay adiga kaa magangeli weyso. yacni waa hadal aad iyo aad u qiimo badan. adiga waxaa lagu amray dadka inaad nabadgeliso, muslimnimadaada ku xiran, toosnaantaada ku xiran. laakiin sheekh shacraawi wuxuu ku daray haddii adiga naftaada ay kaa nabadgeli weyso ka waran, oo loola jeedo inaad shahwadeeda raacdo, hawadeeda raacdo, damaceeda aad raacdo. midda labaadoo lagaa rabo marka adiga naftaada la heshiiso oo aad nabad kula noolaato waxaa waaye inaad qoyskaagana nabad kula noolaato, oo familkaaga nabad kula noolaato, oo xaaskaaga nabad kula noolaato, oo caruurtaada aad nabad kula noolaato. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu faina allaha gafuurun raxiim. culummadu waxay yidhaahdeen qofka familka mas-uulka ka ah waxaa meeshan loo sheegay 3 shay oo isdaba socota. inta 3 shay aan loo sheeginna waa loo digo. waxaa lagu dhahay cadaawadda iyo cadowtinimada familkaaga iyo caruurtaada kaaga imaanaya ka digtaanow. laakiin xalkaa loo sheegay marka dadka qaar waxaa laga yaabaa inay halkaa ku joojiyaan oo la yidhahdo caduwan lakum faxdaruuhum, halkaas lagu joojiyo. laakiin ilaahi subxaana wa tacaala xalkiibuu ku daray. xalkuu ku darayna muxuu ahaa? marka koowaad familkaaga, caruurtaada, xaaskaaga, qoyskaaga aa la nooshahay wixii ay shalay khaldeen ama khaladaad ay hore usoo sameeyeen isku day inaad ka cafisid. marka labaad ay khalad sameeyaan oo aad ku aragto ayagoo khalad sameynayana isku day inaadan xasuusinin khaladkii ay shala galeen. waa safxiga inaa wixii lasoo dhaafay aad dhaafto. guryaha kuma dhismaan inaad tiraahdo shalay waxaana samaysay, shalay dembigaasaa gashay. taasi waxay dhaawacdaa dareenka qofka hadday tahay xaaskaaga. waxay kaloo dhaawacdaa dareenka ninka laftigiisa haddii gabadha laftigeeda ay ninkeeda hadallada noocaasoo kale ah ay ku tiraahdo. caruurtuna waa la mid oo waxaa la rabaa inay kula noolaatid. wixii shalayna inaad iska cafiso, haddana haddii khalad uu galo inaadan dib ugu laabanin wixii lasoo dhaafay. waxaa kaloo la rabaa inaad wixiina cafiso, almaqfira, inaad u dambi dhaafto waxa meesha ka dhacay inaad ka boodo oo aad samayso. maxaa la rabaa marka qoyskaanu si uu isku haysto oo nabad u wada noolaado inay ku wada noolaadaan alcafwu والصفح والمغفرة. saddexdaas inay ku wada noolaadaan baa laga rabaa. macnaheedu loolama jeedo khaladka caruurta ma saxaysid, loolama jeedo khaladka familkaaga ma saxaysid, laakiin waxaa la rabaa dhismaha iyo tiirka si aad nabad adigana u hesho, nabadna ku wada noolaataan. waa in reerkaasu ay ku dhisan yihiin inaanan mar walba laga shaqaynin shalay waxaasaa samaysay, maanta waxaasaa samaysaa. darteed qoys degan haddaa aragto waa qoys mar walba nolosha ka fiirinaya sida ugu degan ee ugu wanaagsan ee bari mustaqbalka loogu sii gudbi karo. inta haddaa samaysa marka adigana maxaa helaysaa? waxaa helaysaa ghafuurun raxiim, inuu ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaafaha ah oo naxariista badan juhdigaas aad reerkaaga iyo caruurtaadi gelisay inay adiga kugu soo laabato oo aad dembi dhaaf ku hesho. intaa markaa kasoo gudubto waxaa la rabaa mujtamaca muslimka ayaad la nooshaa inaad nabad kula noolaato. oo aad nabadda say ugula noolaanaysaa? nabiga sal alay wasalam waa kii yiri ifshu salaama baynakum, ifshu salaama baynakum, assalaamu calaykum. dadka ku dhahdhaha maray kaasoo baxaan keliya ma ahan. waa laga rabaa inaad assalaamu calaykum tiraahdo, salaanta islaamka ku salaanto waa laga rabaa. laakiin xadiisku wuxuu ka hadlayaa waxaa waaye inaad nabadda faafiso. nabadda say ku faafinaysaa? waa in qof kasta oo muslim oo kaasoo horbaxaya horta adiga aad isu diyaariso inaad qofkaad nabadgeliso. marka labaadna waa inaad adiga ku faraxdo markaad aragto qof walaalkaa ah oo nabad ku nool, oo wanaag haysta, oo barwaaqo ku nool. marka saddexaadna waa inaad dhaqankaaga iyo dabcigaaga uu abuurayo hab qof kasta oo kaasoo horbaxa uu dareemayo nabad uu kugu dareemayo. marka waxaa la rabo waxaa weeye qof walba inuu asagu qaato mas-uuliyadda bulshada ka saaran ee ah inuu nabadda faafiyo. waxaa kaloo lagaa rabaa markaad kasoo gudubto bulshada inaad ummadda oo dhan, bini aadanka oo dhan inaad nabad kula noolaato. waata ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahy walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan, oo ah qofka adiga hadduuba nabad ku tuso, hadal wanaagsan uu ku tuso, oo si fiican kuu salaamo, adigana si fiican u salaan. cid kasta oo kula hadashana salaam fiican iyo hadal fiican kula dhaqan, nabadna kula noolow. waxaa kale xataa laga hadlaa qofka kugu soo xadgudba asaga laftigiisa inay waxyaabaha kuu furan waxaa ka mid ah inaad nabad kula noolaato. masiixiyadu waxay qabaan haddii dhabankaaga midig la dharbaaxo, dhabankaaga bidixda u dhig, oo ah waxba talaabaha qaadin, oo mararka qaar ku gaarsiinaysa inaad dulli aqbasho. laakiin qofka kugu soo xadgudbay islaamka wuxuu u sameeyey qawaaniin. qaanuunka koowaad waxaa waaye faman ictadaa calaykum factaduu calayhi mitli ma ictadaa calaykum wajazaau sayi'atin sayi'atu mitluhaa.
qofkan haddii uu adiga xadgudub kugu sameeyo waxaa kuu furan xadgudubkaas mid la mida inaad ku samayso waa kuu furantahay adiga oo aanan xuduudda ka baxaynin oo qof wax yar ku taabsiiyey wax asaga ka tan weyn oo ka badan inaadan u geysanaynin waxaa kaloo kuu furan inaad cafiso haddaa laakiin rajaynayso cafiskaas inuu ku fiicnaanayo faman cafaa wa aslaxa waad isleedahay markaa cafiso qofkan uu xishoon doonaa akhlaaqdiisaa celin doonta qofkaasna asna waxaa lagaa kuu furan inaad cafiso saa darteed islaamku wuxuu ku siinayaa inaad adiga maamuuskaaga magacaaga iyo awooddaada aad qiimo leh aada u isticmaali karto waxaa kaloo la rabaa inaad diintaada nabad kula noolaato see diintaada nabad kula noolaanaysaa ilaahay xaqa uu kugu leeyahay inaad bixiso ilaahay inaad towxiidkiisa qirto shirki aadan samaynin ambiyadiisa iyo rusushiisa siday u dhan yihiin aad wada rumayso laa nufariqu bayna axadin min rusuli waaridkaaga iyo waajibka kaa saaranna inaad gudan karto oo aad waajib ilaahay subxaana wa tacaala uu ku saaray oo xaqa labaad ah oo xaqa ilaahay kusoo xiga ah inaad cadaaladda ka shaqayso inaad dulmiga aad ka hortagto in cid kasta oo kuu gardhigato aad si cadaalada aad kula dhaqanto taa waxay ku keenaysaa marka adiga inaad awood u yeelatid inaad diin ahaan aad noqoto qof ku nool barwaaqo iyo nabad ku nool inaad noqoto sidaa darteed qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu qofnimadiisana ceebta ka dhowro ummadana uu nabadda la raadiyo naftiisana uu nabadda ku dhaqo ilaahay subxaana wa tacaala nebiyada qaar wuxuu gaarsiiyey meelaha ugu sarreysa ee qofka bini aadamka uu nabad uga baahan yahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku dhahay wasalaamun calayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcathu xaya sufyaan ibnu cuyeyna aayadda markuu fasiraya wuxuu dhahay qofka bini aadamka ah waxaa jira 3 meelood oo uu uga baahan yahay yacni uu ku jiro xaalad mugdi ah oo rafaad ah oo waxa ku xiga uusan garanaynin nabiga marka waxaa la siiyey inuu 3diiba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka siiyey nabad midda koowaad waxaa waaye qofka markuu dhalanayo waxay dhaheen wuxuu ka soo baxayaa caloosha hooyadiis meeluusan garanayn buu u soo baxayaa meeshaas ilaahay nabad buu ku siiyey meesha labaadna waxaa waaye markaa dhimato waxaad arkaysaa waxaadan hore u arkin waxaadan hadda annaga aanan garanaynin oo qofka markuu dhinto uusan horey u arki jirin buu arkayaa ayadina ilaahay nabad buu ku siiyey midda labaadna waa yowma yubcath markii khalaa'iqdan dhan intay dhintaan ilaahay subxaana wa tacaala uu soo saarayo marka la soo baxayana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku siiyey nabad saa darteed haddaa rabto inaad meelaha aad adag aad nabad ugu noolaato waxaa la rabaa adigana inaad naftaada nabad ku hayso ummadana nabad siiso nabadana qaybiso والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسونو قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهين الوكيل مغا عيسو ووارسان دمانا